Hello, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kulanti wanaagsan. Waxa maanta ardayda advanced-ka iyo middle-ka waxa iska wada seexdaan. Maanta waxaan hayaa casharaan u hayaa waxa weeye oo casharo badan xitaa cashar maaha ayaan u hayaa markaasi arday kasta bilow ah adigoo bilow ah oo hal isbuuc jooga waxaad awoodi kartaa misana aad u hadli kartaa waxa weeye sidii arday sanad joogay misana bilooyin badan joogay oo kale hadii markaasi casharadan aan kula wadaagi doono insha Allah dhamaantoodii sidii la rabay markaasi aad u akhriso aad u xifdiso haddana sidoo kale markaa xifdisana waxa weeye aad ku hadasho insha Allah casharku horeeyo waxa weeye waa cashar markaasi bilow ah sidoo kale dhamaan casharadu waa cashar wada bilow ah aynu u tiragalnay waxa weeye arday kasta bilow ah aynu soo biira macadku ku soo biira inuu ku soo dhaweeyno insha Allah si uu markaasi ula qabsado luqadii ula qabsado practice-kii maalmihii wada shaqaysiga markaasi uu ardaygu u awoodi karo inuu soo xaadiro class-kii wada shaqaysiga saabtiisana si uu la sameeyo okay casharku wuxuu ka bilaabanayaa okay where do you live okay where do you live ayuu ka bilaabanayaa waxa weeye xageed ku nooshahay where do you live xageed ku nooshahay okay I live in Hiran region waxaan ku noolahay buu yiri ardayga gobolka Hiran baan ku noolahay ereyga region means waa gobol marka I live in Hiran region waxaan ku noolahay gobolka Hiran ayaan ku noolahay okay which town do you live magaaladeed ku nooshahay gobolka Hiran maadaama magaalooyinka ilaa 5 magaalo yihiin so waxa loo weydiiyay ardaygu okay which town do you live magaaladee baad ku nooshahay okay wuxuu yiri isaguna I live in Palatoy town waxaan ku noolahay magaalada Palatoy ayaan ku noolahay okay Palatoy waxay ka kooban tahay ilaa dhowr xaafadood bay ka kooban tahay so waxa loo weydiiyay marka ardaygu okay which village do you live xaafadee baad kaga nooshahay mise xaafadeed ku nooshahay okay I live in Huludag village waxaan ku noolahay Huludag baan ku noolahay okay see you again is aragti dambe see you again too is aragti dambe oo la mid ah casharkan waa cashar koowaad kalabaad ayaynu u gudbaynaa okay are you student arday miyaad tahay yes I am student ha ardayanahay which school do you go schoolkeed aada I go to Modern Institute waxaan aadaa macadka Modern what do you learn maxaa barataa I study English waxaan bartaa Ingiriiska can you speak English ma ku hadli kartaa Ingiriiska yes of course ha taban casharkan isaguna waa casharka labaad waxaynu u gudbaynaa kan saddexaad waxaynu qoran waxa weeye useful sentences jumlado markaasi muhiim ah okay jumladaha markaasi fasiraadooda ay wataan balan aqri oo kaliya okay ask me tan ugu horeyso waa ask me means waxa weeye i weydii labo tell me waxa weeye ii sheeg saddex waxa weeye repeat it ku soo celi afar excuse me iga raali noqo shan talk to me ila hadal lix speak well u hadal si wanaagsan todoba listen to me idageyso okay sideed cheerio nabadgelyo sagaal speak up kor u hadal toban make haste dhaqso waxaynu u gudbaynaa insha Allah casharka afraad ayaynu u gudbaynaa casharkeena afraad isaguna waxa weeye wuxuu ka bilaabanayaa what is your nationality maxay tahay dhalashadaada okay my nationality is Somalia dhalashadaydu waa Somalia okay where does Somalia locate xagee ku taalaa Somalia it's located in Horn of Africa waxay ku taalaa geeska Africa when did Somalia get its freedom Somalia goormay madax banaanideedii qaadatay okay it got its freedom in 1960 waxay qaadatay madax banaanideeda 1960 okay thank you very much aad wad u maasantahay sidoo kale casharkeena afraad isaguna halka ayuu ku dhamaaday waxaynu gudbaynaa kan shanaad okay wuxuu ka bilaabanayaa isagana nice to meet you kulan wanaagsan nice to meet you kulan wanaagsan oo la mid ah please where did you from okay fadlan xageed ka timid I from my house waxaan ka imid gurigayga where does your home locate xaguu ku yaalaa gurigaaga it is not far from here kama foga halkani alright hagaag where are you heading now hadda xagee baad u degdegaysaa oo xagee baad u ordaysaa I am going to Modern Institute waxaan u socdaa
معهدك modern. okay حقاك hurry up اقصو. عشركيني شناد سجنا وانت وحين وجود بين عشر كلحات. عشركيني اللي حد سجنا حوي useful sentences. okay وحكب الأجمد وهريسو I don't know. I don't know حوي ما قرنيه. okay لو sit down فديسو. سده stand up stack. okay أفر help me يعاوي. okay شان keep quiet آموس لح read the lesson أقرأ عشركا. تدو I can't answer it كما جوابي كرو. okay سديد stay watch التحضر. وحين وجود بينا عشركا تضوات أين وجود بينا عشركين تضوات حقا ويرديري هاي وآن وفوزها إن شاء الله. حكا بلاونيا how is your condition. how is your condition واصلة حالة هذا. my condition is very well حالة إذا أتسبي ونأكسنت. please may I ask you one question. فضلا بكويدين كرا هل سؤال. yes you may ask me whatever you like. ها ودويدين كرتا وحكستا أدوات جعشا. yes ها you may ask me ودويدين كرتا whatever وحكستا you like أدوات جعشا. where were you born حاجات ولالتي. I was born in Palestine. حنقول اشتي Palestine. which village were you born حافظت كلالتي. I was born in Holodag village. حنقول اشتي حافظة Holodag. alright حاجات where okay when were you born قرمي ثلاثي. I was born in 2006. لو كن يلحدي أيام اشتي. thank you very much at بعد ما سنتهاي. thank you very much so سيدو كالديونا at بعد ما سنتهاي. عشر كان وعشر كتضوات وحين وجود بينا متك حاجة عشر كين سديد بين وجود بينا. okay إسألنا وحوك بلاونيا وإسألنا شكيسي إسكايا رفضت. okay can you share practice with me وشكيسي ميلا قادن كرتا أو ميلا وذاي كرتا. can you share ميلا وذاي كرتا practice with me وشكيسي أنا ميلا وذاي كرتا. yes I can share chat with you. هاو كله وذاي كرا وشكيسي. okay can you defend yourself ما دفاعي كرتا نفس هذا. okay yes of course ها طبعا. alright حاجات can I okay can you answer my questions ما كتجواب بكرتا سؤالي. alright حاجات can you answer my questions ما كتجواب بكرتا سؤالي. yes of course ها طبعا. okay why do you learn English صوبت برتا إنجليزكا. why صوبت to learn English أدو برتا إنجليزكا. because software it is an international language ولغة عالمية. okay who encouraged who كما encouraged you كوديركلي. who encouraged you يا كوديركلي to learn English أنا إنجليز كالبرتو. my father أبيهيجا encouraged me أيا يوديركلي to learn English إن مركز English أمبرتو. okay see you again is aragti dambe. see you again so is aragti dambe ولا متى. عشركان halkaasaan ugu gudbaynaa waxaynu galeynaa markaa sharka sagaalaad baynu ugu gudbaynaa. isan waxa weey waa useful sentences jumlado markaasi muhiim ah oo aad u badan. okay number 2 tan ugu horeyso waa please shut up fadlan aamus. please shut up fadlan aamus. labo calm down stage. okay be patient dulqaad yeelo oo dulqaado. okay be silent okay aamus now. okay take your chance qaado fursadaada. give me my chance okay give me my pen isi qarankayga. it is wrong one waa mid qaldan oo way qaldan tahay. okay su'aal qaldan dii loo weydiyo waxa dhici kartaa it is wrong one the way qaldan tahay. okay never mind waxba kama qabo hadii loo yiraahdo can I ask you my question is ma ku weydiin karaa su'aalahayga waxaan leedahay never mind waxba kama qabo. soo kale no matter dhibaato ma laha misana dhib ma laha. soo kale no bad ma xuma ay dhici kartaa. okay okay give up the speech waxa weeye jooji hadalka. give up the speech waxa loo jeedaa jooji hadalka. reply my question ka jawaab celi su'aashayda. ka jawaab celi su'aashayda. okay answer my question ka jawaab su'aashayda. don't despise me ha iisin. speak nicely u hadal si wanaagsan. u hadal maxaa weeye si wanaagsan. listen to me idagayso. listen to me idagayso. I'm sorry waan ka xumahay. I'm already
diyaar ma ihi. I am not ready. diyaar ma ahi. Okay, good idea. fikrad wanaagsan. Don't open it. ha furin. Don't open it. ha furin. Piece of bah. Okay, I can't answer it. kama jawaabi karo. Okay, don't worry. ha welwelin. Don't worry. ha welwelin. display your questions. so that su'aalahaaga. display your questions. so that musan soo bandhig su'aalahaaga. excuse me. iga raali noqo. Okay, look at me well. look at me well. si fiican ii soo fiiri. I agree with your idea. I agree with your idea. waan kugu raacsanahay fikradaada. Okay, repeat your question again. kusoo celi su-aashaadii mar kale. repeat your question again. kusoo celi su-aashaadii mar kale. speak up please. kor u hadal fadlan. speak up please. kor u hadal fadlan. Okay, waynu ka gudbaynaa. waxaynu gudbaynaa cashirkeeni 10aad. waynu u gudbaynaa. isaguna waa cashir hogaaska yara dheer. soo markaasi isagana aada u sahlan. Okay, how is your health? waa sida caafimaadkaaga. my health, caafimaadkayga is very well. aad buu u wanaagsan yahay. are you ready to make practice with me? diyaar ma u tahay inaad ila samayso wada sheekaysi. are you ready to make practice with me? diyaar ma u tahay inaad ila samayso wada sheekaysi. yes, I am ready. ha diyaaranahay. yes, I am ready. yes, I am ready. ha diyaaranahay. Okay, what did you prepare please? maxaa soo diyaarisay? what maxaa did you prepare please? aa soo diyaarisay. what did you prepare please? maxaa soo diyaarisay fadlan. I prepared everything. waxaan soo diyaariyey wax waliba. I prepared everything. waxaan soo diyaariyey wax waliba. Okay, if you have question, ask me. if you have a question, okay, if you have a question, ask me. if you have haddii aad hayso a question, su'aal, ask me, iweydii. if you have a question, ask me. haddii aad hayso su'aal, iweydii. okay, ask me, iweydii. can you reply my questions? ma ka jawaab celin kartaa su'aalahayga? can you reply my questions? ma ka jawaab celin kartaa su'aalahayga? yeah, I can answer them. yeah, I can answer them. ha, waan ka jawaabi karaa. yeah, I can answer them. ha, waan ka jawaabi karaa. okay, what's the reason that you are standing here? okay, waa maxay sababta aad u istaagan tahay halkani? what is the reason that you are standing here? waa maxay sababta aad u istaagan tahay halkani? the reason sababta that I am standing here ayaan u taaganahay halkani is waxay tahay to make practice with you. inaan wada sheekaysi kula sameeyo. the reason sababta that I am standing here anigaan u taaganahay halkani is waxa weeye to make practice with you. inaan wada sheekaysi kula sameeyo. okay, may you make me understand the aim of practice? may fahansiin kartaa ujeedada wada sheekaysiga? may you make me understand the aim of practice? may fahansiin kartaa ujeedada wada sheekaysiga? may you make me understand? may fahansiin kartaa the aim of practice? ujeedada wada sheekaysiga? yes, of course. ha, tabcan. okay, make me understand. okay, make me understand it. ifahansii. make me understand it waxa weeye ifahansii. okay, I can't make you understand it. kuma fahansiin karo at this moment time. isla waqtigani. at this moment time. isla xilligani misana isla waqtigani kuma fahansiin karo. why? sabab. because sababtoo ah I cannot remember it is aim now. because sababtoo ah I cannot remember ma xusuusan karo it is aim now ujeedadiisa hadda. inaa ujeedadooda sheekaysiga aniga hadda ma xusuusan karo. because sababtoo ah I cannot remember it is aim now ujeedadiisa ma xusuusan karo hadda. okay, sorry, waan ka xumahay. I think waxaan u malaynayaa that you don't know inaadan aqoonin it is aim ujeedadiisa. sorry, waan ka xumahay. I think waxaan u malaynayaa that you don't know it is aim inaadan aqoonin ujeedadiisa. of course, yes, طبعا. ha. okay, what about Karen?
if I ask you another question haddii aan ku weydiiyo su'aal kale what about ka waran if I ask you another question haddii aan ku weydiiyo su'aal kale okay release it so that okay why software do the people learn something why software do the people learn something okay dadka wax u bartaa why do the people learn something software dadka wax u bartaa okay sorry waan ka xumahay I can't answer it kama jawaabi karo sorry waan ka xumahay I can't answer it kama jawaabi karo insha Allah casharka tumnaadaysan halkaas uu ku egyahay waxaynu gudbaynaa marka qaybta ugu dambayso waxa loo yaqaanaa general questions about English de waxa way waa su'aalooyin waxa way general ah iska good in badan su'aalahan waxa way casharadaynu soo qaadanay baynu soo dhex saarnay marka ardaygu inta markuu si fiican u barto kabacdina su'aalahan waxay ka caawinayaan dhanka practice-ka inuu marka uu noqdo arday aftahana hadli karo oo waxna ka jawaab celin karo okay su'aalaha jawaabta qaybta hoose baynu u qorin waa isla arkaynaa insha Allah su'aasha ugu horeyso which school do you attend schoolkee dhigata which school do you attend schoolkee baa dhigata jawaabta waxay noqonaysaa okay I attend Modern Institute waxaan dhigtaa macadka Modern haddii isku macada Modern aadan dhiganaynin arday kala tahay just waxaad sheegaysaa iskuulka adiga markaa dhigto magaciisii okay adigoo Modern ku bedelinaya magaca iskuulkaagii okay su'aashii ahayd okay marka which school do you attend schoolkee dhigtaa waxaa leedahay I attend waxaan dhigtaa kadib iskuulkaa dhigtaa sheegaysaa I attend waxaa noo qoran I attend Modern Institute waxaan dhigtaa macadka Modern waxaynu gudbaynaa su'aasha kale ee labaad how many subjects do you learn مثلا do you learn imisa maadooyin baad barataa how many subjects do you learn imisa maadooyin baad barataa waa dhigtaa okay waynu eegaynaa iyaduna I learn two subjects waxaan markaasi aan bartaa laba maado I learn two subjects waxaan bartaa laba maado ayaan bartaa okay su'aasha kale deen u gudubno okay do you study English ma bartaa Ingiriiska jawaabteeda waxay noqonaysaa insha Allah yes I study English ha waan bartaa Ingiriiska yes I study English ha waan bartaa Ingiriiska su'aasha kale hadeen u gudubno waxay noqonaysaa why do you study English sababtee baad u barataa why sababtee do you study English aad u barataa Ingiriiska hadaynu ka jawaabno su'aasha afraad iyaduna waxa way jawaabteedii because sababtoo ah Ingiriiska because sababtoo ah it is an international language waa luqad caalami ah it isaga oo Ingiriiska ah is an international language waa luqad caalami ah okay waxaynu gudbaynaa su'aasha shanaad baynu gudbaynaa su'aasheeni shanaad waa su'aasheeni waxa weeye shanaad waxa weeye iyaduna who encouraged you to learn English yaa kugu dhiirigeliyay Ingiriiskana barto who encouraged you kugu dhiirigeliyay to learn English inaa Ingiriiska barto jawaabtu waxay noqonaysaa aynu isla eegno jawaabta my friend sabtayda encouraged me to study English ayaa igu dhiirigeliyay Ingiriiskana barto my friends asxaabtayda encouraged me ayaa igu dhiirigelisay okay to study it inaan markaas Ingiriiska aan barto waxaynu gudbaynaa su'aasha lixaad baynu u gudbaynaa can you speak English waxa weeye can you speak English well ma ugu hadli kartaa Ingiriiska si wanaagsan jawaabtu waxay noqonaysaa yes ha I can speak English well Ingiriiska si wanaagsan baan ugu hadli karaa yes ha I can speak English well Ingiriiska si wanaagsan baan ugu hadli karaa haddaynu u gudubno su'aasha kale su'aashan waa su'aasha toddobaad waxay ku leedahay iyaduna do you practice ma u samaysaa wada sheekaysiga regularly si joogto ah jawaabteeda waxay noqonaysaa yes ha I can make practice wada sheekaysiga waxaan u samayn karaa مثلا yes ha I may practice yes ha I may practice regularly si joogto ayaan u sameeyaa wada sheekaysiga yes ha I may practice regularly si joogto ah ayaan u sameeyaa wada sheekaysiga su'aasha kale waxay ku leedahay iyaduna waa su'aasha sideedaad why subject you may practice aad u sameeysaa wada sheekaysiga
bal jawaabta aynu eegno waxay noqonaysaa jawaabta because sababtoo ah I want waxaan doonayaa to speak well okay to speak it well okay I want waxaan doonayaa to speak English well inaan ingiriiska si wanaagsan ugu hadlo halkaas ka dhigo okay I want waxaan doonayaa to speak English well inaan ingiriiska si wanaagsan ugu hadlo baan doonayaa sababtaasaan u sameeyo u sheekaysiga okay halkaas iska sax su'aasha waxaan u gudbaynaa sagaalaad baynu u gudbaynaa iyaduna so su'aashan waa su'aasha sagaalaad waxay ku leedahay what is the purpose of practice waa maxay ujeedada wada sheekaysiga what is the purpose of practice ereyga purpose means ujeedo what is the purpose of practice waa maxay ujeedada wada sheekaysiga jawaabtan eegaynaa jawaabta su'aasha sagaalaad baynu eegaynaa what the purpose of practice ujeedada wada sheekaysiga is waxay tahay to test in la tijaabiyo the student's speaking ability awooda ku hadalka ee ardayga the purpose of practice ujeedada wada sheekaysiga loo sameynayo is waxay tahay to test in la tijaabiyo the student's speaking ability awooda ku hadalka ee ardayga in la tijaabiyo okay toban okay waxay ku leedahay su'aashan tobnaad what are waa maxay the advantages of chart okay ujeed ereyga chart means waa practice what are waa maxay the advantages waxa weeye faa'iidooyinka of chart ee wada sheekaysiga su'aashan tobnaad aan eegaynaa jawaabteedaan isla eegaynaa toban waxay ku leedahay okay I think waxaan u malaynayaa that it has uncountable benefits I think waxaan u malaynayaa that it has inuu sheekaysigu uu leeyahay uncountable benefits faa'iidooyin aan la xisaabin karin ereyga uncountable means aan la xisaabin karin ereyga benefitsna waxa weeye waa faa'iidooyin marka I think waxaan u malaynayaa that it has inuu leeyahay wada sheekaysigu uncountable benefits faa'iido markaasi aan la soo koobi karin aan la tirin karin su'aashan waa su'aasha 11aad waxay ku leedahay iyaduna how is your speaking ability waa sidee ku hadalka awoodtaada okay balaynu isla eegno jawaabta su'aasha 11aad my speaking ability awooda ku hadalkayga okay is very high at be markaasi ay u sareysaa okay 12 how many weeks or months or years have you been studying English imisa usbuuciyo aad baranaysa ingiriiska misana imisa bilood baad baranaysa ingiriiska misana imisa sanadood aad baranaysa ingiriiska okay jawaabtan eegaynaa okay I have been studying English for 2 years jawaabtan eegno su'aasha 12aad iyo jawaabteeda I have been studying English ingiriiska waxaan baranayay for 2 months 2 bilood ayaan baranayay okay su'aasha 13aad ee ugu dambayso okay what are waa maxay the accents lahjadaha of English Englishka inkastoo Englishku lahjadiisa aad u wada badan yihiin loo waxa jira markaasi broader oo aad u balaaran oo la wada isticmaalo okay waxaan leenahay marka hadaynu ka jawaabno su'aasha they iyaga are waxa weeye British accent lahjada markaasi Britishka and American accent iyo lahjada markaasi Americanka okay inshallah casharadaas waxay ahaayeen marka cashar aynu u tiragalnay arday kasta bilowa si uu la jaan qaado hanaanka waxbarasheed ee markaasi aynu ardayda wax ku barno si uu la jaan qaado aynu markasta ku soo dhaweynaa casharo noocyadaas ardaygu wuxuu awoodi karaa hadii usbuuc casharadan uu qaato mise 2 usbuuc uu qaato just inuu awoodi karo inuu wax iska celin karo practice samayn karo weerar oo fasalada kale uu weerar karo oo ardayda kale qaadan karo soo marka casharadaas iyo casharo ka sii tayo wanaagsan oo ka sii muhiimsan sidoo kale wayn u wada haynaa soo waxaan rajeynayaa insha Allah inaad ka wada faa'iideysteen adigu hadii bilow aad tahay soo videoga haduu soo gaaro ku anfaa casharada inaad marka aad daawato aadna ka faa'iideysto okay thank you very much